dadka youtube-yada iyo gala xariif miihi anigu waxyaabaha waxaan old school baan hado ma aqaan habeen dhaweyd baa anigoo wax iska taabanaya bahalka fartayda meel iskaga dhacdo uma bajeedin runtii saamid baa qaylinaya xididadaas waa kacsan yihiin markii aan arkay runtii waan xiiseeyey waxa uu ku hadlayay anuu xiiseeyey laba qolo siduu sheegay laba qolo oo muu ka dhigay waxa Soomaaliya maanta haysta waa culimada iyo siyaasiyiinta inba Soomaaliya barta ay maanta taala markii horena dhigay imikana ku haya waa midaan anigu aqoonsanahay runtii sababtu tahay marka lafteeda ya culimadu ka hadashay wuxuu war gabadh lug yar in yar qaawisay hadalkeeda maxaa keenay shabaabkan dadkii laayay qaxan abaarahan ibtanina haysta maxaad uga hadli weyday dad culimadii hatta siyaasiyiintii ummadan baqtiday ee wixii aad ku bixinaysaan muxuu ahaa mooshinada kontonka iyo 100,000 lagu kala qaadanayo maxaad ugu weecin weydeen oo siin weydeen ni warintii way gashay hadda siyaasiyiinta waa ku jira ogaad يعني waxaan doonayaa inaan inna gaar u qaadan bahasha qolada waa markii igu horeysay runtii aan dhageysto umana jeedina farta iga dhacdo wax badan oo suurtagalana wallahi way ii sheegeen oo waan dareema waayo waxaan arkayay oo badan oo far badan bay sheegeen min fadlakum muxuu ahaa formkan aad meesha ku fadhidaan yaanu noqonin cad ciid idinkaga dhacay sida culimada ka hadlaysa gabadh yar oo meel ka heesaysa war maxaa keenay dambi haday tahayna iyada u taala hadii kale laga sii gudbano qofkii taga iyo u taala laakiin min fadlakum sida culimadaas uga hadashay waxaan loo baahnay shirkinan yaan looga hadlay wax muhiim ah oo ummadda Soomaaliyeed wada anfaca inaad ka soo saartaa